weli maankaaga ma ku soo dhacay inay jiraan wadamo badan oo muslimiin ah kuwaas oo heer sare ka gaaray xagga taajirnimada ama dhaqaalaha adduunka laguna tilmaamo wadamada ugu hodansan caalamka islaamka iyo dunida inteeda kale. wadamo badan ayaa sameeya dakhli dhaqaale oo gaaraya billions ama trillions sanad walba. haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa 10 dal ee muslimiinta ay ugu taajirsan dunida. haddaba la soco kala horeynta ama kala sareynta dalalka way isbedeli kartaa sanad walba. waxa kaalinta koowaad ku jirta Qatar. dalkan yar ee ku yaal bariga dhexe waxa muddo dheer si awood leh ku haystaa kaalinta koowaad dalalka ugu taajirsan wadamada muslimka ah. dalkan ayaa ka taajiray dhoofinta gaaska dabiiciga, saliidda iyo waliba batroolka. waxa ku nool Qatar dadyo gaaraya 2.6 milyan oo ruux. celcelis ahaan dhaqaalaha dalkaasi marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa qof walba ku soo beegmaysa $88,919 sanadkii. dalkan ayaa leh ilo fara badan sida dekado, aerobooro iyo waliba goobo loo dalxiis tago. dowladda Qatar waxay martigelin doonaan ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka ee la qaban doono sanada 2022. dalka Kuwait ayaa xajisanaysa booska labaad ee wadamada ugu taajirsan dalalka islaamka ah. dalkani taajirka ku ah saliidda ayaa waxa uu kaysan 104 milyan oo fuusto, taas oo ka dhigaysa in 10% ay u kaysan tahay saliidda adduunka. dalka Kuwait waxa ku nool wadaniyiin gaaraya 4.1 milyan oo ruux. celcelis ahaan dhaqaalaha dalkaasi marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa qof walba ku soo beegmaysa $54,654 sanadkii. Brunei waa dalka saddexaad ee ugu taajirsan dalalka muslimiinta ah. boqortooyadan yar ee ku taala koonfur bari ee Asia ayaa hodan ka ah batroolka iyo waliba gaaska dabiiciga ah. waana wadanka sagaalaad adduunka ee dhoofiya gaaska dabiiciga. marka la qaybiyo dhaqaalaha dalkaasi waxa qof walba ku soo beegmaysa $50,506 sanadkii. dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa booska afraad ka soo galaya wadamada ugu taajirsan dowladaha islaamka. saliidda, gaaska, dhismaha iyo waliba ganacsiga xad dhaafka ee ka socda Abu Dhabi ayaa waxa ay ka dhigaysaa inay soo gasho booska afraad. celcelis ahaan dhaqaalaha dalkaasi Imaaraadka marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa qof walba ku soo beegmaysa $48,222 sanadkii. Cumaan ayaa ah wadanka shanaad ee ugu taajirsan dowladaha islaamka. dalkan ayaa waxa uu Ilaah ku manaystay kheyraad dabiici ah oo isugu jira dahabka, macdanta iyo biraha nooca loo yaqaano copper iyo waliba zinc. waxa kale oo dalkan keed ahaan u haystaa batrool gaaraya 5.5 milyan oo fuusto. markii dadka Cumaaneyska loo qaybiyo dhaqaalaha dalkaasi waxa qof walba ku soo beegmaysa $28,880 sanadkii. dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ah dalka lixaad ee ugu taajirsan dalalka muslimiinta ee adduunka. wadankan ayaa ah wadanka labaad ee saliidda adduunka ay ku kaydsan tahay iyaga oo dhoofiya 95% saliidda. markii dhaqaalaha Sacuudi Carabiya loo qaybiyo dadka ku dhaqan dalkaasi waxa qof walba ku soo beegmaysa $24,430 sanadkii. Bahrain ayaa ku jirta kaalinta 7aad wadamada ugu taajirsan ee islaamka. sidoo kale dalkan waxa uu ugu horeeyaa wadamada xooliga ku koraya dhanka dhaqaalaha adduunka. dalkan ayaa waxa ku nool dadyo gaaraya 1.49 milyan oo ruux. celcelis ahaan dhaqaalaha dalkaasi marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa qof walba uu helayaa $23,690 sanadkii. waxa kaalinta 8aad soo tiigsatay dowladaha ugu taajirsan wadamada islaamka dalka Turkiga oo dhaqaalihiisa ugu badan uu ka helo bangiyada, dhismaha, dib u habeynta saliidda, kiimikooyinka baabuurta iyo waliba sameynta maraakiibta. dhaqaalaha dalkaasi ayaa celcelis ahaan marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa qof walba uu helayaa ama ku soo beegmaysa $16,885 sanadkii. waxa kaalinta 9aad soo ciriisatay Liibiya oo kamid ah wadamada ugu badan ee u kaydsan tahay saliidda adduunka, sidoo kalena soo saara batroolka. celcelis ahaan dhaqaalaha dalkaasi Liibiya marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa uu qof walba helayaa $15,589 sanadkii. waxa kaalinta 10aad fadhiya Malaysia oo ah dalka 10aad ee ugu taajirsan wadamada islaamka. Malaysia waxa ku nool dadyo gaaraya 31.62 milyan oo ruux. dalkan ayaa dhaqaalihiisa ugu badan waxa uu ka soo galaa kheyraadka beeraha
saliidda qumbaha, masagada iyo waliba batroolka. sidoo kale Malaysia dhaqaalaha ugu badan waxa uu ka soo galaa dhanka iyo dalxiiska. celcelis ahaan dhaqaalaha dalkaasi Malaysia marka loo qaybiyo tirada dadka ku dhaqan waxa qof walba ku soo beegmaysa ama shakhsi walba uu helaya $14,100 sanadkii. haddaba daawada ogsoonow ama la soco dhaqaalaha aanu soo sheegnay ee ku soo beegmay ama uu helaya shakhsi walba ee wadamada aanu soo sheegnay ee kamid ah wadamada ugu taajirsan wadamada islaamka ma ahan dhaqaale ee shakhsiyaadkaas helayaan ee waa marka dhaqaalaha dalkaasi la qaybiyo qof walba inta ku soo aadi lahayd.